وبركاته waxaan halkan ka salaamayaa ummadda islaamka dhamaanteed السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalkaysa Kariyati Macade oo iga aqbalay codsigayga waxaan waa kuma qofka inuu la hadlayo waa walaashii Maxamed Axmed waa gabadhii sanadkii hore joogtay magaalada Qardho aad garabka iyo gaashaanka siiseen walba gabadh Soomaaliyeed ee baraha bulshada uga ilmeynaysa oo weliba uu ka ilmeysiinayo qof bini aadan oo lamid ah ama qalbi ranka waxa la arkaan qawaamuna aynisa oo rag waxay ka yihiin mas'uul dumarka mid kale waxay tawliir rijaal calayhim daraja ilaahay rajaaga darajadiisa darajada ilaahay si xuud ilaahay waxay noqotay inay gabadh Soomaaliyeed maalin walba uu mid ka ilmeysiyo oo ka oohiyo markay aaminto oo qalbigeeda siiso taas waxaan u maleynayaa waa oohin iyo murugo u soo hooyatay baan dhihi karaa walaalaha ragga ah oo Soomaaliya ragga Soomaaliya u soo hooyatay waxaan dhahayaa ragga Soomaaliyeed 90% waxay ka sameeyeen huwa magaca iyo muuqa laakiin waxa lagu kala duwan yahay dabeecadaha raggu haddii ilaalin karin gabadha qalbigeeda waxba beenha u sheegin runta u sheega runtuna dadka ma naxiso insha Allah waxaan rajaynayaa aan ka rajaynayaa Soomaaliyeed garab istaag iyo duco insha Allah ani maanta xoolo uma baahni laakiin waxaan rabaa maanta garab istaag iyo san xaqeeyo ku helaha ilmahan ilaahay isii ilaahay inuu badana kan u kala keeno aniga isagana ilaahayna kala gar saaro adduunka aakhirada miyan afin doono oo meesha nabad ku taala kuna oolaan doonta intii naftiisa ka dhiman waxaan ku leeyahay Kariyati Macade walaalkay qaali soo dhawow waqti ay hurtay marka waad iyo mar labaad waan kaaga mahadcelinayaa halkaas Kariyati Macade aad baan kaaga mahadcelinayaa wax dacwada markay gudbisay waan ka gudbiyay maxay tahay arinta laga dhacay oo aad ka cabanaysaa waxay tahay arinta laga dhacay oo aan ka cabanay oo maanta mar labaad baraha bulshada igu soo ceshay horta wuxuu noqday baraha bulshada saameyntii ugu badan baan ku yeeshay ayaan ku yeeshay aflagaadaan ku yeeshay hasa ahaato qofna uusan ahayn qof walba oo nolosheeda ku soo biira anigu way rabaa hantidayda rabaa laakiin aniga iga carray ama iga faaniya la dhihi karaa waxa dhacday wiil Soomaaliyeed oo walaalkay maalmo dhikro walaalkay bal wuxuu noqday madax hoosta iga cunay aan dareemin wuxuu iga dhigtay waxaan ka dhigtay garab iyo gaashaan iyo naxariis meel baba dhigtay waxaan ku oran maadaama xamsaan lacagta ay u shaqeeyo oo iifo anigu waxa dhacday inuu soo isku qoray hadduu isku qoray aan markaan mas'alayn oo iska daa waxa iska dib aan isku sinay aan isku yeelanay la soo doonay reerkeedu siiyeen markuu dantu waxa gaaray habeenimada kama isku dhacsan dumarku waad aragtay wax aan qadaadana sinasi laakiin waxa dhacday inaan meel bandhigay uu soo joogo anigana aan joogay aan ka qayb galay kadib uu yiri gabar gabdhaha kamid ah tiri waa hebel xaaskiisii saastarta lix buuq qaadatay ma sha Allah oo mahadcelina لأجل كلمة درت بهوتا قربي وكنت سكرية أنت معدين واحد عوضة وحقيقة والله هاي صومالي وحقيقة والله مانتا وحنك عصنا يا مدى صومالي مانتا إني قرب يوصي إنسان عدالة مهير لها مانتا وحن كواميل ربوانا إني قرب يوصيني قفل ووحي إلي شلع داسية marka maanta waxaan ka codsanayaa markoowaad iyo marlabaad iyo mar saddexaad walaalaha Soomaaliyeed ee muslimiinta ah iyadoo ay bil Ramadaan tahay in la raadiyo xaqiiqa waayo qof xaq ka maqan yahay baahay qof waxaan ahay la dibindaabay waxaan qof qalbiga laga jabiyay qalbiga waa muraayad dadka way dib badan tahay marka runtii dareen iyo shucuurtooda maanta kama hadli karo Kariyati Macade marka waxaan rajaynayaa kullu inaan cadaalad helo إنكاس إلهي رب سبحانه وتعالى حوان آمني وخيانة مبدو جوبيسو إلهي نمكس إفصار إن شاء الله وردينيا منك من تعليقنا هدوم قوصان ها يسوي دباتي كيستي يسوي خيانة يسوي عاي يسوي أفلك يسوي عاي أما إما أما دباتك لإيه كيستي وأن أغهي نحو إيجتري وأن أغهي إنه يقدر هذا فرهبنا إلا حد ما أنت ممكن يتعلها waayo waxa weeye ninkii noloshayda kan ku aaminay kan shalay ilaahay dartii u aaminay kan shalay aan wax cadeyn aan ka qaadan maanta waan jeclaanahay ninkii noloshayda hantideeda inay soo noqoto laakiin hantideeda waa waaye ninkii waa waaye waxaan noqday qof lagu dangaaray marada hadii uu suqooyo waa la iska bixiyaa dabcan wadani falaxta
طبعا أنا محمقي مروس خوضي سجن نظيف وحرتي أنا كنت يقول تهجريني وحوي موسى أرى قرب أنا جاي لهذا الشيء ويقرب تاجن أما قفي قرب تاجن إن شاء الله مثل يسودوني والي يبين والي دوني وأباه اللي يتسني لكن ما أنتم حبيبي كدمتي لها والي جاري نظل إيمانك المستقبل هذين يجني هنا إلا إيمانك سكري وخلاص وحريري إلا إيمانك بكي وجهي أتصي أقمشين وجهته واحد هذا سكريتي معدي صدق حاجين وحي كشورك وترس ربوبيت رس والله بانكو كلنا أنا يسري يتدي أنا هو مركز هذين الودو ونفسن وأنا أحكيه لكره ما راح يمكنها قد تحاول العافية لسانه يهرع النقطة وديني هو الله خيانة اللي بعد يجيست لكن إلهي بعد على عناية أو دي بمجيسن بقوية بمجيسن مرة بوان شعراني كيلين وشيء لكن يصير له واحد يشي حاسد سيما حاق فلسطينات كان برها بشرط جدا كده فلاقات بدل حتى قوس كيس ويلسوا بعد دي كرامات كده كلام marka waxaan leeyahay intaasaan kusoo gabagabeynayaa Soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa ama walaalaha muslimiinta shalay ay garabtaan maanta inay u garab istaagtaan san xaqayga u helayaa waxaan ka codsanayaa madaxda Puntland iyo shacabkeeda inay garab igu siiyaan xaqayga xuquuqdayda helo xitaa maanta waxaan ahay qof uur leh uurka xataa wuxuu ma dhalin hooyadii xataa waxay tiri wiilkayga wax uur u leeyahay aniga uurkayga ana ku barimaayo duulahay maanta adduunka ay keenay alxamdulillah هدو سمعت إلى يقدر دوك إلى رب العالمين لكن وحن أتصل إلى قرب استاكينا إني كاس كل بدي حولا شغلة دي كان بيجي شوية شيء ما أهل حولا أنا وعن صور شقيستي وهي إيه صور عن نختار كآلي عن جناح شقيستي جناح سجين ما ينفعش نقول مركو ولا ليان ومحسنتين بقول كذا بقول وحن قادر منها أمي مركو ولا نقلبات ورياشة كلا سكريات معادية على آدم المؤمن والشغلة يقصي أكيد شو باهي ما أنتنا جعل إن عدكي وباهيان ما أنت نجعل إن نقرب مليا قاشان وهم قضي براه بالشدة من سوشيال ميديا وإحنا قطعي عاوية مساكينتا مركز إن شاء الله وحنا جينا نحلو ضبي عاوية وله هدفتي عاوية أنا من الخاسمة لك الصارة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته